بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا وعن وناكسن قياري meel walbo aad joogtaan halkan waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka qodobada barnaamijkan aan idinku soo gudbin doonana waxa ka mid noqonaya Saadiq John waxa uu weerar xoogan ku qaaday Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Xamse Cabdi Barre waxay u muuqataa in haatan ay kala furfuranayaan kooxda dam jadiid oo markaasi uu majaraha u hayay Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana xukunka la wareegtay Masar waxa ay doonaysaa inay ciidamo keento Soomaaliya iyo qorshaha laga leeyahay oo la ogaaday heshiiskan qarsoodiga ah ee Xasan Sheekh Maxamuud uu la galay Masar ayaan idin soo gudbin doonaa ciidamada Kenya ee jooga deegaanada Jubbooyinka in laga saaraya arrimaha la soo warinayo ayay qayb ka tahay haddaba tani ma ka dhigan tahay in Kenya ay qaadayso tallaabo ay wadnaha ku jarayso Xasan Sheekh Maxamuud guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxaa aadna ogeyn oo ka socdo xog sir ah oo arrinka la xiriirto ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkan idinkaga imaanaya barta aan ku leenahay YouTube-ka ee xanta wararka hayeeshee haddii aad nagu cusub tahay waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga dalbanayaa in aad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibada iyo daawadayaasha nagu xiran ee halkan aynu ugu soo gudbino wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka iyo Soomaaliya intiisa kale qodobadaas iyo kuwa kale oo muhiim ah idin qarinayo daawadayaal ku soo dhawaada like-tu waa noo muhiim haylmaamin mar waliba aan ku xasuusinayaa daawade sidoo kale qaybta hoose ee comment-iga noogu reeb aragtida muhiimka ah hagaag aynu ku bilowno xildhibaan Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya ee uu ruqseeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhawaana darajada ciidan uu soo celiyay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook oo ahaa mid gaaban ayuu ku baahiyay war si aada loo naqdiyay kaas oo warbaahinta iyo sidoo kale goobaha kale ee wax lagu baahiyo ay si aada u hadalhayaan Saadiq John ayaa u muuqday mid markaasi si aada u dhaliilayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Xamse Cabdi Barre kuwaas oo u kala safray Garowe iyo Beledweyne inkastoo Ra'iisul Xamse uu ku soo laabtay magaalada Muqdisho balse Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali joogo magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ujeedka ugu weyn ee halkaas u tagay ayaa waxa ay tahay in uu kormeer indhayn ah ku sameeyo goobaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah ee abaartu ay saameysay iyo in uu markaasi dejiyo xiisadda ka dhex awlsan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland kaas oo si aada u diidan qaabka uu markaasi Xasan Sheekh Maxamuud wax ku maamulayo Dani dhowr heshiis ayaa looga baxay qoraalka uu soo dhigay bartiisa Facebook Saadiq Cumar Xasan Saadiq John oo u muuqday mid si aada loogu eedeynayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Ra'iisul Xamse Cabdi Barre ayaa ahaa mid kooban qoraalka ayaa cajaa'ib lahaa aragtiyo kala duwan oo ay dadku ka bixinayaan ayaan idin wadaagayaa balse aan marka hore dul maro qoraalka bahlaha dilaaga ah sida libaaxa waraabaha shabeelka iyo wixii la halmaala dadka iyo dunyada ayaa meel ammaana lagu hubsadaa kadib ayaa duurka laga ugaarsadaa ayuu yiri Saadiq John qoraalka Saadiq John ee arrinkaasi ayaa u muuqday mid lagu durayay Xasan Sheekh Maxamuud isaga oo kaga dan leh in markaasi caasimadda marka hore laga saaro ama markaasi amnigeeda la xasiliyo kadibna meel cad looga soo horjeesto dadka aragtiyaha kala duwan bixinaya ayaa waxa ay leeyihiin taliya warkaasi waa cad yahay ee dadka iyo dunyada aan meel ku hubsan bahalaha dilaaga ah waa in laga hortagaa Farmaajo meel duur ah ayaan geysaynaa kadibna waan beegsanaynaa ayuu qof kale leeyahay nin gar leh jaamacad dhameeyay waliba bartay caafimaad leh saaxiibo iyo walaalo ka yaryar oo waxaan qorayo ayaa yaab iyo amakaag ah aqoonteenu waa baasitaanka imtixaanka ma dhaafo ayaa lagu yiri qoraalka
dadka aragtida kala duwan ka bixinaya ayaa sidoo kale waxa ay leeyihiin nabad iyo nolol iyo CBB dalkii waa laga qabtay haddana waa la dilaa ayaan u fahmay ayuu leeyahay qoraalkiisa qofkan. qof kale ayaa sidoo kale waxa uu bixinayaa qoraal goborti leemiya mudane sare ma ka hadashay waa aqaan xaalad baa jirta kolleyba balse meesha ay ka jirto ayaan ogaan doonaa. General Ciidid booskiisii maanta adaan noogu jira laakiin ha isdhigan yaan lagu gaadin sidii Cabdiciis Afrika farmaajo weli xamar ayuu kula joogaa waana in markaasi uu ku ciil qabo ogow ayaa sidoo kale qoraalka lagu leeyahay. qoraalkan uu soo baahiyay Saadaq John ayaa aragtiyo kala duwan laga bixinaya iyada oo markaasi uu u muuqdo in ay markaasi uu dhaliilayo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. dadkan aragtiyo kala duwan ka bixinaya qoraalkan uu bartiisa Facebook ku baahiyay Saadaq Umar Xasan Saadaq John ayaa waxa ay leeyihiin taliye weliga ayaa lagu seexinayaa dadka ka cabsanaya waa lagu seexi jiray. General Umar waxaan u fahmay see badbaado qaran dunida u baratay qof galada Soomaaliya maamulaya caalamkana aan la socon sida qoorqoor. tani ayaa u dhigan in markaasi eed kulul loo jeedinayo markaasi dusha laga saarayo xubno markaasi uu majaraha u hayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Saadaqo si fiican ayaan kuu fahmay xasan ayaad la talinaysa oo waxaad leedahay horta dadka xamar meel ku ogow iyo kuwa halkan ka walaaqaya xalli kadib Puntland iyo howlaha gal laakiin xayawaanna aad sheegtay kii niicaanka ahaabaad ka ilowday waa kii dameer ahaaye. dadka ayaa qaarkood sidaas soo qoraya iyaga oo Saadaq John kule. haddaba daawade adiga maxaa ay kula tahay qaybta hoose ee commentiga noogu reeb aragtida saliimka ah. waxaan mar kale ku xasuusinayaa daawade inaad ku soo biirto saaxiibada nagu xiran oo aad noo leegarayso muuqaalkan. markana dowladda Masar ayaa doonaysa inay ciidamo u soo dirto Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS. waxaa sidaasi qoray wargeyska The Africa Intelligence. wargeyska ayaa sheegay in arrintan lagu soo qaaday wadahadaladii Qaahira ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdulfataax Al-Sisi dhamaadkii bishii Julaay. intii lagu guda jiray wadahadalada Al-Sisi ayaa ku celceliyay inuu doonayo in ciidamada Masar ay qayb ka noqdaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee loogu yeero ATMIS ayaa lagu yiri qoraalka warbixinta. bacda waxa Xasan Sheekh Maxamuud ku jawaabay haddii arrintaasi dib loo sii amba qaaday kadib kulankii Qaahira. warbaahinta nuxurka oo xiriir la sameysay ilo wareedyo ka tirsan fila Soomaaliya waxa ay sheegeen inaysan arrintan ogeyn. haddii Masar ay qayb ka noqoto howlgalka ATMIS waxay noqon doontaa isbedel weyn oo ku yimid siyaasadda gobolka iyo tan Afrika. waxay noqon doontaa dalkii ugu horeeyay ee waqooyiga Afrika ah ee ku soo biira howlgalka ATMIS oo hore loogu yeeri jiray AMISOM. si kastaba ATMIS sababaha ugu waaweyn ee loo aas-aasay ama ay u howlgalaan ayaa waxa ay tahay la dagaalanka xarakada Al-Shabaab. inkastoo Al-Shabaab weli ay ka arriminayaan deegaano iyo degmooyin badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. arrintan ayaa sidoo kale soo jiidaysa indhaha dowladda Itoobiya oo xiisad ay kala dhaxayso Masar taasoo salka ku haysa biyo xireenka webiga Niil sidoo kalena aanay isku fiicnayn dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. ciidamo Masar ah oo yimaada Soomaaliya waxay Itoobiya u tahay qadcas oo aan laga gudbi karin ayaa lagu yiri warbixinta Intelligence waa Africa Intelligence wargeyska lagu magacaabo. aragtida Addis Ababa ayaa ah in soo dhawaansho Qaahira iyo Muqdisho ay halis ku tahay dowladda Itoobiya oo aragtida ay qabaan. Masar waxa ay markan il gaar ku eegaysaa xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya iyadoo arrinkaasi u aragto dan muhiim ah oo ay tahay in aan laga baaqsan. Itoobiya dhankeeda arrinkan walaac xoogan ayay ka muujinaysaa. Masar waxaa lagu tilmaamaa dalalka dhanka ciidamada ugu horeeya wadamada Afrika. wadamada caalamka ayay kaalmo muhiim kaga jirtaa kaalmaha lixdanaadka ayayna beegsanaysaa. daawade barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee xanta wararka. haddii aad nagu cusub tahay daawade nagu soo bir oo ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran. amaana Allah soo